isbogoomi cayaarta qashin ururinta ee abaalmarinta looga helo gudaha Jabaan waa xubinteen la yaabka ee soo dhawo daawade. Isbogoomi waa cayaar asalkeedu yahay ururinta qashinka oo tartamayaasha ay u kala dheereeyaan soo gurbinta iyo ururinta qashinka dadsan ama tuban meel cayiman oo jidadka magaalada ka mid ah. waxaana markii ugu horeysay uu tartanka noqon doonaa mid caalami ah oo la qabtay bishii aynu kasoo gudubnay ee sanadkan aynu ku jirnay 2023 waxaana loogu yeeray Isbogoomi World Cup. magaca Isbogoomi wuxuu u taagan yahay isboorti iyo goomi oo ah qashinka afka Jabaan. koox walba waxaa la siinayaa 60 daqiiqo ama saacad ay ku soo ururiyaan ama gurbiyaan qashinka yaala meelaha qarsoon iyo hareeraha jidadka, waxaana la soo qaadayaa nooc walba oo ka mid ah qashinka sida bacaha, caagadaha iyo wixii la halmaala. markii uu dhamaado waqtiga, koox walba waxaa laga cabiraa inta kiilo ay soo ururiyeen, waxaana alaaba guuleysta midka ugu badan ee soo ururiya qashinka. mararka qaar guuleystayaasha waxaa lagu qiimeeyaa hadba qashinka ay keenaan sida kartuumada, sigaarka iyo wixii la halmaala. waa hab ciyaareedkii ugu horeeyay oo deegaan la jaal ah kaas oo wax weyn ka anfacaya wax u qabashada arlada iyo hab nololeedka deegaanka. dadka Jabaan ayaa ku caan ah nadiifinta goob walba oo ay tagaan tan iyo markii xulkooda bilaabay inuu ka mid noqdo tartanka koobka adduunka sanadkii 1998. taageerayaasha Jabaan ayaa ku caan ahaa in ay nadiifiyaan garoomada iyo qolalka ay seexanayaan inta tartanku socdo. kooxahan ka qaybgalaya tartanka ayaa halkudhig ka dhigta qashin qaadidu waa cayaar ka mid ah cayaaraha, laakiin kama ahan oo kaliya ka qaybgalayaasha helidda hadiyado iyo abaalmarin. waa hadaf kale oo ah ilaalinta iyo badqabka deegaanka iyo horumarinta bilicda iyo quruxda magaalada. wadajir u wada howlgaliduna waxa ay ka caawinaysaa in ay waqti hufan oo aan daal badan iyo caajis lahayn kaga qaybgalaan tartanka.